bal qisadan dhageysta waa wiil yar oo khaatumo xumo ilaahay u qoray isagana wuxuu leeyahay maalin anoo masaajidka fadhiya ayaan waxaan arkay waxa ii yimid nin ordaya qisadan riyaad bay ka dhacday Sacuudiga markaasuu wuxuu yiri sheekhi aways hal waa ka soo bax wax balaaya dhacday hor maxaa dhacay waan orday qubuurihii baan tagnay askar baa ku wareegsan lama geli karo waa artay meesha wax ka dhacaan waxa lagu xiraa wax lama geli karo gaasa waxa la yiri waxa soo geli kara culimada kaliya iyo askarta waan soo galay biyo markaasaan waxaan u nimid buu yiri wiil dhalinyaro ah oo qabri kor yaala oo meyd ah meesha goglay uu yaala markaan wuxuu yiri u nimid ayaan waxaan niri buu yiri maxaa dhacay markaasaan liyo godka fiiriya godkii la qoday godkii baan fiirnay godkii marka la dhameystiray ayaa waxaa ka soo baxday abeesa weyn oo tiirkaas leeg waa ka soo baxday meeshay taagan tahay way malafsanaysaa markaan aragnay ayaa niri intaad godkan ka tagtaan god kala qoda godkii kala la qoday markii la dhameystiray abeesadii naftirkeedii baa meesha ka soo baxday haddana waa mucjiso markaasaa waxaan niri ka tago oo mid saddexaad qoda godkii saddexaad baa la qoday abeesada laftirkeedii baa ka soo baxday kaase culimadu waxay dhaheen abeesadan waxaan sameeyna ma naqaanee askarta inta loo yeero xoog lagu qabto godka ha laga saaro biraa la keenay abeesadii baa la qabtay waa la jiiday banaanka loo bixiyay cunugiina duugaanay cunugii wixii markaan qabrigii dhignay abeesadii ayadoo saynta saa u warfinaysa bay dadka dushoodii oo dhan ka soo booday say u socday bay dam godkii bay ku dhacday annagoo u jeednay cunugii ku bilowday inay cunto wallahi wuxuu yiri lafiisa cacabaya qacacadoodan maqlayay buu sheekhi wiilkii way ruugaysaa markaasaan waxaan niri ciidaha lagu dada ayadoo cunaysa lama wax la qaban kara ma aha bahal aad u weyn godkii baan ku dadnay biyo waan ka tagnay ana wuxuu ooyay oo la yaaban wiilka wixii ku dhacay ayaa irbi aabihi hal ii geeyo culimadii baa tiri aabihi baan u tagnay nin oday ah waa yeel saaniri adeer wiilkaagu muxuu ku mutay waxaas qisadaas kaasuu uu ilmeeyay kaasuu wuxuu yiri wiil ka baarisan ma aanan dhalin iskuulka wax ka wanaagsan ma jirin student buu ahaa warkaygana wuu maqli jiray dantiisana wuu yaqaanay laakiin salaadii baan ku kari waayay Allahu akbar fiiriya dhalinyarada salaada lagu kari la ayahay wallahi taariku salaadka ama hal la arka ama yaan la arkina culimadu xadiis baa jira xataa ku bishaareynaya saasa qabriga ku haysata laakiin qaar waa la arki qaar lama arkayo waa khaatumo xun salaad la'aan buu ku dhintay Soomaha dadkii u jeeda baa la cadaabay fiiri waxyaabaha cajiib kale waxaan u gudbayaa wax yar oo ka sheekeynaynaa calaamaat xusn al-khatima calaamado lagu garto ma jiraan khaatimada wanaagsan oo qofka haday ka muuqdaan la garanayo qofkan inuu khaatimo wanaagsan ku dhintay way jiraan calaamadahaas waxa kamida an nutqu bitawhid inda al-maut qofka markuu dhimanayo tawxiidka ku hadla qofkii ila markuu dhimanayo la ilaha illa allah dah حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة حاكي باوري قفكي مركو لمن يرضها لا إله إلا الله جنة قليا حديث كان ضدك أي كم وقتي وحاكم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وحي عايش هذا حديث كإمام البخاري أوري يا غير كيس نبي مركو لمن سكرات أبدا بالسكرات وحي لا هاي رسول كمركان أركي كذب qof dhibaata hayso oo dhimanaya oo xanuun hayo ma dareemo anigu dibkii rasuulka haystay markaan xusuusto markaasaan waxaan arkay bay tiri wajigiisa oo dhan baa dhidid biyo noqday xanuun kaliya markaasuu dhiiggu isaga guraya sidii biyo camal markaasuu baaquli meesh buu ku daadinayay baaqulku intuu gacanta galiyo biyo wajigiisa mariyo dhididka ku dhaqo ayuu isaga hoorinayay markaasuu wuxuu lahaa laa ilaaha illa allah inna lilmawti la sakaraat لا إله إلا الله ولا جيرد حنون بيلاده سكرات بيلاده اللهم هون علي سكرات الموت إلهي وإيف ضيدي سكرات الموت أصاب أساس نهية أيو ديدي كساء سقرية أو نهية لا إله إلا الله أيو حجر يتمركي قدام بيسي في الرفيق الأعلى وحان دورتي جماعة سرع أيان دورت وحان دورتي قولة سرع وحديث كلا يري أي روايدها قاركون ليهين رسول كما نبو منبرك كإستاجة مركو لمن وحير كار مركاسو حيري أدون ماذا إلهي كمذا أيا إلهي وحود دور رنسيي إنه أما أدون كدورته أما إنه آخري إلهي أكتي صدورته تدكي أدن عادي بإسكاهيا
أبو بكر باستاج بكسو أوي وأوي أبو بكر وأوي ضد وحيد هن أضيق عن محاكو دعي النبي يقول كشا كين يا قف آخرية أدون للدورنسيي أو إلهي أكتس وحي على الدورتي محل أوي markaasaa saxaabadu waxay dhaheen markuu nabigu dhintaan waxaan garanay inuu nabiga ahaa qofkaasi Abu Bakar qofka noogu cilmiga badan uu ahaa fiiri la ilaha illa Allah inna lil mawt la sakarat dadka ay kada xadiidkaas ka daahiray waxa kamid ahaa Abu Bakar laftirkiis markuu dhimanayay fiiri ayaa Aisha soo kor istaagtay markaasay waxay tiri intay la yaabtay xanuunka haya ayaa waxay tiri والله ما يغني الثراء عن الفتى ولا ويلك هدي قفك سكرات كقبته مالك سوح أمطره وحباء الدنيا أمطرته قبل بيت الرساس وكلا وكاسو انتو فيريو وحويري لا يا بنيتي قبل ايدي ساها لهنا وحاد هذا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا سيقول الآخر فيري وأبو بكر أبا وحاد حسوسي سا قودي سيولي آخر حسوسي وان لمن ياي أو حاد قد الآخر ذا وجاءت سكرة الموت كي بايمن وحكو هيوا سكرة الموت كي ذلك ما كنت منه تحيد ووحي أتكعر ريسي إنه ما أنتوا حنكعر سكرة الموت وأركتين أنتوا غفكوا إسئلالنا أنتوا بروتكشن قادنا أنتوا سيف سايد وقادنا أنتوا وحكت تحدري أنتوا وحكعر ري إنه أنتوا غفكوا مكاسو أبو بكر وحلي آية حسوسي محا آية كجرتي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وحال أفو في قيامة بون كذي وما ننتي لغو بلان قاضي أبو بكر وما ننتي لغو بلان قاضي يقول ده آية ساسو كوضا مركو لا يقول الآخر إلا نقفك آية وإنه سوء سباندقو مركز وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد نفك استويت مد أيضا ملائك منا وكمر خاتك عيو منا وهجامين يوجيدي فيري أيتمن مركز هو حليه وحاطر هذا أنت أصبرك آيات سيكون الآخر وسورة قاف مركز هو كل انتي كلمة التوحيد سواء قرية فيري وحاكمد وحيابها لوجة على مدى وناكسن أو قفك كل انتو أهل الجنة يهي إنه قفك انت أسوى الشهيد أو جدك إلهي كل انت وحاكمد قفك إنه انت أسوى الدولمات جدك إلهي كجرة وحاكمد قفك ضاعون كدلو ضاعون سمتك على الشبنك قفك أودلو وحاكمد قفك عذرك إلهي صلق أودلو صلق وحالي هذا أصل عذرك تي بيد إنه وعنهم عذرك قفك أودنته وأسونا وأهل الجنة وخاتون ونكسن وحاكمد داء البطن قفك صع على الشبن أودنت على حنون قفك أودنت وحاكمد موت المرأة في نفاسها ضمرك المضى كودنت هذا انت ايضا جمعه وحالي هذا ايضا علمه اسوته ان راعده اما ان markay dhasho ay dhimato ayaa la yiraahdaa labadaba waa isku mid haday dhalmadii ku dhimato waxa kamid qofkii ama meel ku dunto ama gubta ama biyo ku qarqooma ba kamid waxa kamid qofkii dhinta habeenka jumcada ama maalinteeda waxa kamid cudurada waxa kamid qofka ku dhinta araqul jamiin araqul jamiin waxa la yiraahdaa qofka markuu dhimanayo haduu dhidido waa ahlu janna way maalin baan muhaadaro khusn khaatimo ku saabsan baan masaajidka meel baan ka akhriyay gabar baa isoo wacday fiiri xadiidkan waxa ku jira xadiidkan markaasay waxa igu tiri aabahay wuu dhintay bay tiri markaasay waxa igu tiri maanta markii aad muhaadarada la jeedinayay waxaan si u bixiya $100 aabahay wuxuu ahaabay nin wadaad oo quraan akhris badan markii uu dhimanayay asagoo shahaadada ku celcelinaya bay tiri waa gabar iska dhalinyaro xataa diin aqoonin oo dhidid wajigiisa ka ayuu dhintay bay tiri fiiri waa araqul jabin waa waxyaabaha lagu garto qofkii inuu ehlu khayrka yahay oo janno galayo intaas oo dhan ikhwaani waxa kamid
qofkii camal wanaagsan asagoo gacanta ku hayo oo ku jira dhinta dad baa sujuudda ku dhintay dad baa quraanka dhexdiisa ku dhintay asagoo quraan akhrinaya dad baa intaasoo khayra ku dhex dhintay xadiid waxaa jira nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam man qaala laa ilaaha ila allah ibtigaaa wajhi illah khutima lahu biha dakhala aljanna qofkii dhah laa ilaaha ila allah isagoo ilaahay wejigiisa raadinayo loogu khatimo jannadu gala waman saama yowman qofkii maalin sooma hal maalin haddaad soontid ibtigaaa wajhi illaahi wejiga ilaahay adoo raadinaya khutima lahu biha oo loogu khatimo dakhala jannata jannadu gala waman tasadaqa bisadaqatin qofkii sadaqa la baxa fiiri ibtigaaa wajhi illaahi wejiga ilaahay isagoo raadinaya khutima lahu biha loogu khatimo dakhala jannata jannadu gala intaas hadda laga sheekaynayo qofku isagu iskama keenkeeni karo wuxuu qofku ku heli karaa waxyaabahaas oo dhan inuu la yimaado sababaha khaatumada wanaagsan keena inaad sababtii la timaadid sababaha khaatumada wanaagsan keena taas waa calaamaadkii inagu waxaan u haysanaa qofka wiil dhalinyaraha maalin wuxuu igu yidhi la yaabay oo ka mid a dhalinyarada qur-aanka iyo dhigata wuxuu igu yidhi sheekh waxaa la yidhi qofkii laa ilaaha ila allah dhaha oo dhinta isagoo yidhi jannadu galaa maxaa loo leeyahay salaad tukada saas waaba shorti ka dhe markaan dhimanay laa ilaaha illa maan dhaho jannada iska aado wuxuu u malaynayaa wax iska easy ah macnaha qofku intuu iska dhaho uu jannada galayo waa Soomaalida waxay dhihi jireen nin oday ah wuxuu soo fadhiistay darsi la akhrinayo kaasoo wuxuu maqlay sheekh dhahaya qofkii maalinta jumcada ah dhinta ama habeenkeeda oo god gala jannadu gala si xilahay dalaaqan sheekh waa saan tabacsanahay anigu ma saga keensan karo qofku ma keensan karo macnaha waa inuu ilaahay u qoro waa saan damacsanahay haddaad damacsantahay inaad ku dhimatid dadaal